madaxweyne ku-xigeenka waddankani Kenya waxaan ognahay kulamo kala duwan ayuu marar kala duwan buu bulshada inuu la hadlo uu soo waday maalintii u dambeysay midii oo ka dhacday Muranga ka dhacday tan hadda u dambeysay oo iyadana ka dhacday lacagaha lagu ururinayo oo doonayay madaxweyne ku-xigeenku inuu Harambee ku sameeyo oo iyadana laga horjoogsaday marka aan fiirino isu soo baxyadaas kala duwan oo dad uu qabanayo madaxweynuhu iyo dadka faraha badan ee isugu imanaya iyo go'aamada wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Dr. Fred Matiang'i uu soo jeedinayo ee la xiriira in aan la qaban karin wax ayna ciidamada ogeyn ugu yaraan 3 bari oo kale in la sii ogeysiiyo laamaha ammaanka si kulanka cidda qabsanaysa ay u qabsato arinta saaxiibada William Ruto way eedeeyeen waxay dhaheen annagana loola jeedaa haddaan nahay tanga annagana loola jeedaa arintaas marka aan fiirino macadahay Raylana markuu meel walba wax ku qabanayo madaxweyne Uhuru markuu u baahdo sidaas la mida cidda iyaga aan ka soo horjeedin sidaas la mid ay qabsanayaan William Rutona talaabada uu qaadaba waxa weeye isha lagu hayo tii Muranga ay dad ku dhinteen midan Nyamira oo kiisi hadda ka dhacdayna iyadana la joojiyay oo laga joojiyay in cidda loo daleeyahay ay William Ruto tahay inuu talaabo qaadan aan loo ogoleyn la doonayana ololihiisa siyaasadeed ee wadanka in la xakameeyo ma muuqata horta horta su'aashaas ayaa waxay tahay waxa kaliya laga jawaabi karaa markii horta la isla la faguro xubinta uu ku xigeenka madaxweynaha dawladdan Jubilee uu ku leeyahay baa maaragtay su'aashaas laga jawaabi karaa 2 sano iyo xogaa ayaa ka dhiman doorashada soo socoto soo gartaba haddii aad fiirisid Raila Odinga maanta waa nin qaybta qale barnaamijka aan ku soo qaadan doonaa waraysi uu leeyahay mid kamid ah wargeysyada dalkani laakiin waa nin heshiis la galay madaxweynaha dalka soo gartaba heshiiskaas oo ah si wada jir ah aan wax u kala qaybsano si wada jir ah aan shacabka wax ugu qabano soo gartama marka fasiraadda meesha ku jirta waxay tahay maadaama Raila Odinga uu la heshiiyay madaxweynaha dalka madaxweynahaasna wuxuu ka arrimiyaa guriga madaxtooyada markii loo fiiriyo dastuurka dalka ayaa waxay tahay mid mataana ah waa madaxweynihii iyo ku xigeenkiisii marka dadka qaar baa waxay qabaan qalbiga saliimka ayaa wuxuu dhigayaa wax alaale wixii madaxweynaha uu hadirtan faraha ku hayo ayaa automatically naturally waxa laga rabay ku xigeenka madaxweynihiisa inuu ku taageero soo gartamaha xitaa haddii aad fiirisid asalka kelmadda tanga waxay ku timid xilli uu madaxweyne Uhuru ku sugnaa Juja ahayd uu lahaa war anaka har iyo habeen waan idin shaqaynaa xitaa ku xigeenkayga waa kan huwa ana tanga kila Jumamosi na Jumapili yani meelaha soo warwareega si uu indheeyo mashaariicda soo gartamaha marka isagana inta badan ku xigeenka madaxweynaha waxaa laga hayaa inuu yiraahdo mimi ni mtu wa mkono wa rais aniga gacan yarihii madaxweynaha ayaan ahay halka u bax markii la igu yiraahdo waan baxa oo waan aadaa oo hooshayda waan soo gutaa soo gartamaha marka waxyaabaha la isku haystaa waxay tahay hadeertan maxaa keenay in uu isaga ku soo gabado uu yiraahdo may dadka qaar ba waxay isu maleynayeen wadankan inay dadka kaga xaq leeyihiin hogaanka dalka inay dadka kaga xaq leeyihiin marka inta badan wuxuu ku dhaga hadlaa Raila Odinga laakiin waxa toos loo fasiraa madaxweynaha ayuu toos u abaaraa dadka qaar siyaasadda dalkan indha waxay ku leeyihiin haddii aad fiirisid go'aankii uu ku galay Jubilee House madaxweynaha markuu France ku maqnaa soo gartama yani waxa jira ficilo uu sameeyay ku xigeenka madaxweynaha waa sida dadka qaar siyaasadda indha waxay leeyihiin wuxuu dantiisa ayaa waxay tahay in uu madaxweynaha ka careysiyo soo gartama ay timaado bari kamaalin madaxweynaha sidii uu Raila Odinga amal hilfaha u qaadi jiray uu dhihi jiray Kenya nashinda kwenda mbele kwa ajili ya Raila Odinga in uu hadana madaxweynaha soo istaago warwad ninkan aan ka shaqeysan lahayn marka taasi ayaa waxaad moodaa horta lama huraan bay noqon doontaa goortee noqoto yani la sugaya hagaadho runtii Uhuru oo iscaynhay marka
madaxweyne Uhuru Kenyattana dadka maaragtay siyaasadiisa taageero ayaa waxay leeyihiin xilli uu madaxa xoqanayo isleeyahay alla ilaahay maxaa lagu xasuusan doonaa waqtigaagina gabaabsi weeyaan ku xigeenkaagina waa kan de wadanka dhan buu ku wareegayaa oo waxaad moodaa wax allaale waxaad istiraahdeed alla ilaahay meeshan ka tol ayuu dhinacan kale ka furaaya marka aan fiirino cabdi dhacdooyinkan hadda dhacaya aan ku noqono midan hadda oo Nyamira oo kaleeto ama tii Murang'a oo kaleeto aan fiirino haddii ay sii socoto oo haddana go-aanka noocan ama qorshaha noocan ay golaha wasiirada iyo xukuumadda iyo guddigan la sameeyey si looga hortago arrimahaas qoladan madaxweyne ku-xigeenkuna ay ku eedeynayaan laamaha maamulku inay la safan yihiin dowladda ama ay madaxweynaha la safan yihiin waa sida iyagu hadalka u dhigayaane ma laga yaabaa wadankan Kenya 2007 baan ognahay wixii Kenya soo maray muddooyin ka horreeyay baan ognahay wixii Kenya soo maray qalalaasihii 2017 doorashadii bishii 8 dhacday baynu ogeyn wixii dhacay markii lagu murmay doorashada oo wadanka meelo kamid ah qalalaasa ka dhaceen inkastoo ugu badnaayeen deegaanada uu ka soo jeedo Raila Amolo Odinga ra'iisul wasaare hore dalka ma laga yaabaa waxa hadda wadanka ka socda ee campaign-ka siyaasadeed ee siyaasiyiintu ay wadaan iyo laamaha ammaanka qorshayaashooda iyo fariimahan la faray iyo amarada loo dhiibay marka aan fiirino iyo Fred Matiang'i oo ognahay ninka uu yahay oo nin aad u adag wax uu maagan aan u malaynaa laga karin uu yahay dadkuna ay dhahaan madaxweynaha ninkan awoodda siiyay oo waxa weeye cidi kama daba hadasho dhinaca xukuumadda Kenya marka ma laga yaabaa waxa hadda Kenya ka socday siyaasiyiintu wadaan inuu qalalaase wadankan dhaqaalihiisa lagu tuntay musuqmaasuq dilooday xaalkiisa uusan meel la u soconin hadda oo 10 mashruuc oo BBI ay kamid tahay Huduma number ay kamid tahay ay kamid ahayd arinta SGR ka oo deymo badan wadanka lagu leeyahay ay kamid tahay arinta la xiriirta tirakoobkii waxa soo mashruucana uu soo maray muddadii hadda koobnayd ee doorashadan muddadan ay hadda xilka hayaan ma laga yaabaa qalalaase siyaasadeed in ay siyaasiyiintu wadanka geliyaan haddii aan laga fikirin wax hadda socdo horta dadka qaar ba waxay qabaan haddaba waa lagu jiraa oo problemkaas uu ka jiraa dalkani haddii aad fiirisid William Ruto hadafku wato ayaa waxay tahay in badan ayaa xaqiina lagu tuntay in badan ayaa xoolihiina la dhacay soo gartay ma in badan ayaa maaragtay dad magac iyo maamuus dalkan ku leh hoggaanka idin soo hayay waxaa la soo gaaray xilli aad cadkiina soo goosan lahaydeen idinkoo saboolnimo maaragtay aad ku soo barbaarteen waa inaad maaragtay wadan haddana qani ah marka waxaad moodaa sheekadaas narrative-ka noocaas ayaa wuxuu sii abuuraya maalinka ku xigo nooc min al-naceeb u dhaxeeyo dadka haysto iyo dadka aan haysanin runtii haddii aad fiirisid baraha bulshada barta Twitter-ka shalay bay ahayd ku xigeenkii hore oo maaragtay afhayeenka baarlamaanka dalkan Farax Macalin runtii tix dheer buu ka qoray William Ruto iyo waxyaabaha uu ku doodayo uu shacabka ka dhaadhicinayo mimi ni maskini babangu alikuwa maskini soo gartay ma wuxuu yiri beenaale weeyaan waxba kama jiraan soo gartay ma sababtoo haddii aad wuxuu yiri haddaysan ka tagi waynin dadka maaragtay kabalaan iskool ku aaday waa dadka maaragtay u soo halgamay wadankan soo gartay ma xitaa example wuxuu soo qaatay sagaashameeyadii in maaragtay familiga Odinga uu ahaa family xitaa biilkooda iska bixin karin ay noqotay Mama Ida inay xitaa mushaharkeeda runtiina waan dhihi karaa Farax Macalin waanin maaragtay xog fara badan hayo xiligaasna xisbiga Ford Kenya xubin weyn yani xubin buu ka haystay oo taasi ayaa xitaa sidoo Farax hadalka u dhigay waxay sababtay in Raila Jaramogi Oginga Odinga abi Raila abi inuu lacag 2.5 million oo ka qaato nin xiligaas musuqmaasuq lagu tuhmaayo oo la dhihi jiray Kamlesh Patni soo gartama marka all in all Farax Macalin sidoo u dhigayo maaragtay Twitter-kaas ayaa wuxuu ka turjumayaa war
ninkan weligii saboolnimo iyo dhib ma soo arkin marka yuusan dadka bilaash maaragtay u ilduufsanin marka haddii aad fiirisid su-aasha kale meesha ku jirtaa waxay tahay ku-xigeenka madaxweynaha gaarigacanka markuu qaybinayo boodhabodha markuu dadka u gadaayo haddii lacala uu ka turjumi lahaa uu dhihi lahaa war dadaalkan wuxuu ka socdaa dowladda Jubilee oo madaxweynaha igu taageersan sheeko kale ahaan leed mutaay laakiin waxa weeyaan dadka maaragtay madaxweynaha la safan ayaa waxay isweydiinayaan war ninkan muxuu goleeyahay okay everybody knows ninkan inuu rabo madaxtooyada dalkani inuu la wareego haddana waxaad moodaa in legacy-gii uu ka tegi rabo Uhuru Kenyatta ayaa waxaad moodaa dadka siyaasadda indha waxay aaminsan yihiin waxaa maalinka ku xigo minjaxaabiya Ruto sheeko ayaa haddartan suuqa ku jirta sababta dib loogu dhigayo BBI-da oo runtii ay tahay yacni wax uu kalgaceel u hayo madaxweynaha dalkani uu dhowr jeer ku celceliyey waa in ay meel marto siyaasadda waddankana waxa dabka ku shiday iyadoo marka kuteen ayaa suuqa ku jirta BBI-da wax dib loogu dhigayo waxaa cabsi looga qabaa haddii haddartan la soo shaaciyo maadaama guuxa dalka loo arko William Ruto inuu wato in lagu gacan sayri doono su-aasha kaleeto oo isla arrintaas uun la xiriirta markaan fiirino dadka siyaasadda waddanka iyo xaaladda maanta waddanku taagan yahay ku halgamaya ama isku haya waa Nyanza Rift Valley iyo bartamaha waddankana Kenya ama Central Province Kenyadii kaleeto iyo dadkii kaleeto reer Kenya oo Northern Kenya coast oo iyadaad moodo in campaign xoog lagu bixinayo la kala jiidanayo iyagu ma sidan un bay rabaan inay dadka wax kula qaybsadaan ma saddexda region maxaa keena adar kuwan kale koosaar weeyaan ma aragtay waalida markii lagu keeno xogaa yar oo koosaar weeyaan waxa hadba dabaysha dhinac u baxdo un baa ma aragtay la raaci doonaa marka saddexdan dhinacan baa isjiidanaya muddana saasay soo ahaan jirtay